daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii bandhiga toddobaadka oo toddobaad walba aad maalin ka daawataan telefishinka FANKA TV kaasi oo aan kusoo qaadano dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay caalamka iyo Soomaalida kuwii ugu xiisaha badnaa isla markaasina aan sheekooyin gaar ah iyo warbixino aan idin ka soo sameeyno waxa barnaamijka si wada jir ay kusoo jeediyay anigu Axmed Shimaaliya iyo Nashaad Farxaan Cali nashaad soo dhaw wagaag aad baa maasantay Shimaali sida uu sheegay Shimaali waxaanu toddobaad kastaba aanu diiradda saarnaa oo aan markaas idii soo qaadanaa waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee ka dhacay dunida iyo Soomaalida wagaag toddobaadkan barnaamijka kulli maxaad filanaysaa kulli dhacdooyin fara badan oo ay ka dhaceen Soomaalida iyo caalamkaba isbedel way dhaceen waa soconaya adduunku marka sheekooyin xiiso badan way ku jiraan sheekada koowaad aan ku wacsumo toddobaadkan barnaamijka Shimaaliyo sheekada ugu xiisaha badan leh toddobaadkan ee barnaamijkeena markaas aan ku soo qaadan doono waxay ka hadlaysaa waa wiil Hindiya oo ka soo jeeda dhalashahan gobolka Rajasthan ee waqooyiga Hindiya wiilkaasi wuxuu sameeyay dhacdo runtii aad la yaabay xaaskiisii buu iibiyay sidoo uu gato telefoon bal sheekadaasi ka waran wala yaabtay Soma kulay Hindiya wax walba ka dhacay inta badan sheekadaasi waxaan idin ka diyaarinay warbixintan daawashoonaysa wiilkani ayaa waxa uu iibsaday telefoonka gacanta kadib markii uu haweeneydani ka iibiyay nin 55 jir oo ku nool Rajasthan jimcihii boolisku waxay soo bandhigeen wiilkani oo ay istaajiyeen maxkamadda dhalinyarada kiiskani naxdinta leh ee dambiga ah ayaa waxa geystay wiilkani oo 17 jir ah haweeneydani uu iibiyay xaaskiisa ahayd ayaa waxay daahan jirtay 26 sano waxaana uu go'aansaday si uu iibsado telefoon in xaaskiisa uu iibiyo inta kadibna waxa uu bilaabay talaabadii uu ku iibin lahaa nin 55 jir ah oo u dhashay Rajasthan oo ah gobol ka tirsan waqooyiga Hindiya ayuu gabadhiisani ka iibiyay inta kadib booliska ayaa soo badbaadiyay haweeneydani waxaanay weydiiyeen su'aalo la xiriira wiilkan sida wararku sheegayaan wiilkani ayaa waxa uu guursaday gabadhiisa bishii July ee sanadkani balse taa bedelkeeda waxa uu sameeyay in bishan Agosto gabadhiisa uu iibiyo si uu helo telefoonka gacanta wiilkan iyo haweeneydani waxay aadeen gobolka Rajasthan ee waqooyiga dalka Hindiya halkaasi oo ka bilaabay shaqo isaga iyo dhalinyarada ay asxaabta ahaayeen maalmo kadib waxay go'aansadeen isaga iyo dhalinyaradu in haweeneydani ay ka iibiyaan ninkani ka soo jeeda gobolka Rajasthan inta kadibna waxa kiiskani la wareegay booliska gobolkaasi sida ay u sheegeen warbaahinta sheekadaasi xiisaha badan ninkaasi iibsaday xaaskiisa kadib markii uu u baahday telefoon oo ay noo soo jeedinaysa Nashaad Farxaan Cali intaasi aan kaga nimaadno qodobka xiga ee barnaamijkeena toddobaadka aynu ku soo qaadanayna waxa weeye aynu u kacno dhanka Soomaaliya gaar ahaan Puntland oo ay ka dhaceen doorashooyinkii ugu horeeyay ee qof iyo cod ah kuwaas oo ah doorashooyinkii ugu horeeyay ee ka dhacay Soomaaliya kadib burburkii doorashooyinkan ayaa ah kuwa tijaabo ah waxayna ka dhaceen 3 degmo iyagoo ah golayaasha deegaanka ee degmooyinkaasi lagu soo dooranayay shacabka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada Puntland ayaa u dareeray doorasho taariikhi ah taasi oo qof iyo cod ah waxaana doorashadani lagu soo dooranayay golayaasha deegaanka ee 3 degmo doorashadan oo ah mid tijaabo ah isla markaasina isha lagu wada hayo ayaa ka bilaabmatay degmooyinka kala ah Qardho Ayl iyo Ufayn waxaa loo arkay inay tahay tallaabo ay Puntland u qaaday dhanka dimuqraadiyadda doorashadan ayaa markii la soo gabagabeeyay waxa ku soo baxay musharaxiin ka tartamayay dhowr xisbi oo doorashada ku galay doorashadan ayaa markii ay soo ilaatay waxa ku soo baxay tiro musharaxiin ah oo ka kala socday dhowr xisbi oo ku tartamay doorashada qaarkood lama filayn in doorashada ku soo baxayaan Muxsin Cabdilaahi Xaaji waxa uu dhowr sano ka hor ka mid ahaa dadka degan xiriyaha dadka soo barakacay ee ku nool magaalada Qardho oo ka mid ahayd 3 degmo ee ka dhacday doorashadu Muxsin waxa uu ku dhashay magaalada Qalaafe ee dalka Itoobiya kor inta uusan u soo wareegin dalka Kenya kadib markii sida uu sheegay colaad sokeeye ay ka soo qixisay deegaanadii uu ku dhashay Kenya ayuu inta ugu badan ku qaatay waxbarashadiisii ilaa heer jaamacadeed balse 5 sano ka hor ayuu ku laabtay deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Qardho oo uu ka mid noqday dadka degan xiriyaha dadka soo barakacay Muxsin waxa loo doortay xubin ka mid ah golaha deegaanka ee Qardho waxa uu sheegay in markiisii hore uusan filayn inuu ku guuleysan karo doorashada balse markii dambe uu dhiirigelin ka helay riya ahayd inuu doorashada ku guuleysan doono taasi oo sida uu sheegay u rumowday markii dambe doorashada sidoo kale waxa ku soo baxay lamaane ka soo baxay ururka ka kuwaasi oo ka mid noqday xubnaha golaha deegaanka ee degmada Qardho Xasan iyo Faa'iiso oo ah lamaane nolosha ku midoobay ayaa doorashada si wada jir ah u galay isla markaasina hal xisbi ka wada tartamay waxayna noqdeen labadooduba 2 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Qardho doorashadan ayaa ahayd mid bilow ah
isla markaasina soo jiidatay inta badan Soomaalida. wagaag haddii aanu intaasi kaga nimaadno doorashooyinkii ka dhacay ee Puntland oo Shimaali noo soo jeedinaya waxyaabo ugu xiisaha badnaa. Markan waxaynu eegi doonaa Shimaaliyow kooxda Taliban ee markaasi oo gabadh ciyaartooyada qoorta ka gooyay. waa sheeko dee aad u naxdin badan marka aad eegto qof marka dee qoorta laga goynayo aad buu naxdin badantay. sheekadan ayaan idinka sameynay daawasho wanaagsan. kooxda Taliban ayaa waxay madaxa ka gooyeen ciyaaryahanad ciyaarta kubadda laliska. sida warbixinaha lagu sheegayo ma jirto cid ka warhaysa dilkan arxan darrada ah iyadoo dagaalyahanada Taliban ay ugu hanjabeen qoyska ciyaaryahanadani inaanay cidna u sheegin. arxan darradani ayaa waxay bilaabantay isla markii ay Taliban qabsadeen Afghanistan. hadda warbixino dheeri ah ayaa soo baxaya waxaana sheegayaan in dagaalyahanada Taliban ay qoorta ka gooyeen haweeneydani da'da yar ee kubadda laliska ee Afghanistan ciyaaraysay. wararka ayaa waxay soo xiganayaan tababaraha kooxdani kubadda cagta oo u warantay qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi inay sheegtay in gabadhan da'da yar ee u ciyaaraysay kooxdaasi ee reer Afghanistan ay sheegtay in la gowracay horaantii bishii October. tababaraha kooxda haweenka qaranka Afghanistan ayaa sheegtay in qaar ka mid ah ciyaartooyada kooxda ay u suurto gashay in dalka ay ka baxaan ka hor inta aanay Taliban la wareegin gacan ku haynta magaaladani, balse gabadhani ay u suurto geli weyday oo ay ku guuldareysatay inay ka baxsato kadib markii ay Taliban xukunka la wareegeen. xukunka waxa xayiraad adag lagu soo rogay gaar ahaan ciyaaryahanada haweenka ah. وهكذا أنت سيكون ما دور بحين تسوي نوسو جديد سين نشاد قبل كحجة برنامج كنا تضبط كنا دينا سوق هذا الناس نوحة وكهذا يا حالة قرعيل قل جدود الصومالية وحا هالكاسيس كهر فري مدون كيودن بين نشاد عندما كل ترسنا أهل السنة والجماعة أو أور رضغاقة أو ولي سياسي يسيد وكله عندما دا دولة فدرال كصومالية أو قرب كهلية عندما دا مامل قلمدك أو ديجانا دا حكومة ما أنت يا لقى ساري ويسقى بحين عندما دا أهل السنة ودوان لوريجه هالكاسي لكن وربحين تنا وحين كل يقدرنا أود عيدان أهل السنة إليهن ما دام المركلة سوره على عليين يسيد وكله بل هذا يحيى لقى في الانكار أورك نسدا ودقمان يهجميش ودخل كده بيه أديان لا شو نكس waxaa maalmihii u dambeeyay uu dagaal xoogan ku dhex marayay magaalada Guruceel ahlu sunna iyo ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya. dagaalkan ayaa waxa ku dhintay dad badan oo ka tirsan dhinacyada halkaasi ku dagaalamayay. dagaalka ayaa maanta la soo afmeeray kadib markii lagaga awood roonaaday ciidamada ahlu sunna magaalada Guruceel isla markaasina lagala wareegay. haddaba waxa isweydiin mudan intee ayay dhan tahay awoodda ahlu sunna markii ay dawladda Soomaaliya ay meesha ka saartay ahlu sunna sanadkii hore ayaa waxa gabi ahaanba burburay awooddii ciidan ugu yaraan intii markaasi muuqatay. ciidamada ahlu sunna ayaa ku biiray kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaasina madaxdii ahlu sunna ayaa dalka dibadiisa aaday. yaa siiyay ahlu sunna tababarka iyo dhaqaalaha. madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu ka xun yahay in dhinacyo Soomaali ah iyo kuwa ajaanib ahiba ay taageero siiyaan ururka ahlu sunna. ahlu sunna ayaa la sheegay in tababarka inta badan ay ka helaan saraakiil hore uga tirsanaa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. ahlu sunna ayaa markii ugu horeysay soo ifbaxay sanadkii 2008 sida uu sheegay Axmed Macallin Fiqi wasiirkii hore ee amniga gudaha ee maamulka galmudug. waxaa ahlu sunna aasaasay culimadii deganeed magaalada Guruceel. xilliga la aasaasay waxaa magaalada Guruceel ka talinayay al-shabaab oo iyagu xidhay qaar ka mid ah culimadaasi, taasi oo ka dhalatay in dhalinyarada iyo culimadu ay ka falceliyaan. isla sanadkaasi 2011 ayaa waxaa bilaabmay inay dagaal la galaan al-shabaab. waxaa lagu bilaabay dhalinyaradii xirta ahayd ee deegaanadaasi kutubta ka akhrisanaysay. asaaskooda ayaa ka dambeeyay kadib markii ay al-shabaab dileen qaar ka mid ah culimadii halkaasi joogay isla markaasina ay qaar kale isaga carareen. 24 abriil 2011 ahlu sunna wal jamaaca ayaa al-shabaab kala wareegtay dhuusamareeb iyo inta badan guud ahaan ee gobolka Galgaduud. ahlu sunna ayaa markii dambe xoog ku muquunisay al-shabaab isla markaasina ka saartay inta badan deegaanada gobolada dhexe. Axmed Shimaali, Honkebel TV, barnaamijka bandhiga todobaadka. wagaag haddii aanu intaasi kaga nimaadno warbixintaasi xiisaha loo aan rajeynay inaad ka wada bogateen. markan waxaynu soo qaban doonaa sheekada gacanteedaan ku hayo
waa gabadh 25 jir oo hal mar 9 cunug mataaneysay way talo soo dhashay waa runtii waa dhacdo la yaab leh laakiin hadana marka adeegto awoodda Ilaahay waa arrin aad mucjiso badan oo dadka in badan soo jiidatay toddobaadadii la soo dhaafayna aad looga hadalhayay social media oo dhexdooda waagaag sheekadan ayaan idinka diyaarinay daawasho wanaagsan waa sheeko cajiib way 9 cunug oo mataana ah ayay dhashay haweeneydani 25 sano jirka ee u dhalatay Maali Xalima Ciise ayaa waxa la soo sheegay in xaaladeeda caafimaad ay wanaagsan tahay dhakhaatiirta gacanta ku haysa caruurta ee dalka Morocco ayaa waxay sheegeen in hadda ay kaligood neefsan karaan oo aanay u baahnayn in qalab lagu xidho sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP balse Xalima Ciise iyo caruurteeda waxa lala socon doona xaaladooda caafimaad 2 bilood ee soo socota waxay ku sii jiri doonaan isbitaalka aabaha caruurtani dhalay ayaa waxa la weydiiyay sida uu awoodi karo daryeelka 10 caruur ah waxaana uu ku jawaabay sidan ku sheegay alle ayaa caruurtani siiyay isaga ayaana go'aaminaya sida ay ku noolaan doonaan kama walwalsani arrintani marka uu Ilaahay wax sameeyo isaga ayaa inaga og sababta uu sameeyo Xalima Ciise urkeeda ayaa hadalhayn badan dhaliyay toddobaadkii la soo dhaafay baraha bulshada ku kulanto gaar ahaan aaladda Facebook oo ay dad badan ku falanqeynayeen intaasi hadaynu kaga soo noqono sheekadaasi la yaabka badan iyo gabadhaasi caruurta faraha badan Ilaahay ugu nabciyay aynu halkaasi kaga nimaadno qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena toddobaadkan ku jira waxa uu noqonayaa loolanka ka dhex taagan xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo kamid ah xisbiyada mucaaradka ah Soomaaliland isla markaasina xisbiga ugu awoodda badan ee dhanka mucaaradka waxa xisbigu uu dhawaan qabsan doonaa shirweynaha guud ee xisbigaasi oo la filayo in bisha November uu dhaco ee soo socota laakiin waxa jira guux fara badan oo siyaasi ah oo ka dhex jira siyaasiyiinta iyo sidoo kale haldoorka kamid ah xisbiga warshaxin badan baa doonaya in jagada gudoomiyaha u tartamaan aad iyo aad waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay dhanka siyaasadda Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay waxay ahayd loolanka shir gudoonka gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga wadani loogu jiro warbixintan ayaan ku eegi doonaa habka uu socdo loolankaasi iyo halka uu ku dambeyn karo shirweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa la filayaa inuu qabsoomo horaanta bishan soo socota ee November waxaa lagu waday inuu dhaco bishan laakiin dib ayaa loo dhigay xaraaradda siyaasadda ee xisbiga ayaa cirka isku soo shareeraysa shirweynahan waxyaabaha dabka ku sii shidaya waxaa kamid ah qorshaha uu damacsan yahay gudoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Ciro ee ku saabsan wareejinta gudoomiyaha xisbiga siyaasiyiin badan ayaa judhiiba u hanqaltaagaya in ay jagadaasi qabtaan musharaxiinta ilaa hadda shaaciyay waa 3 musharax oo mid kamid ah tanaasulay Dr. Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Xasan hogaamiyaha xisbiga iyo gudoomiyihii kumeel gaarka ah ee xisbiga wadani Cabdiqaadir Jirdo oo isagu mar dambe tanaasulay dhanka kale xisbiga ayaa wada hadal kula jira siyaasiyiin ka soo firdhaday xisbiga kulmiye oo hogaaminaya siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi oo hore uga tirsanaa xisbiga maxaafidka ah kulmiye wada hadallada ayaa si goos uga socda magaalada Hargeysa maalmihii la soo dhaafay waxyaabaha lagaga hadlay waxa kamid ah siyaasiyiinta oo miiska soo saaray qodobo ay kamid yihiin in gudoomiyaha xisbiga lagu wareejiyo iyaga halka ay saldhiganayso xaraaradda siyaasadeed ee xisbigu waxa la ogaan karaa oo kaliya marka la qabto shirweynaha xisbiga wagaag intaas ayaan kaga imanaynaa sheekadaasi xiisaha badneed oo Shimaali noo diyaariyay ee uu kaga hadlayay loolanka loogu jiro jagada gudoomiyaha xisbiga wadani guud ahaanba barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo kaga imaanaya Hon Cable TV studio aan ku leenahay magaalada Hargeysa toddobaadkani waa naga intaa barnaamijka waxaad la socodsiiyaa anigoo Nashaadi iyo Shimaali intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka farsamo yaqaanada telefishinka Hon Cable TV gaar ahaan Maxamed Mawlid iyo Mustafa oo dhanka farsamada ka qayb qaatay barnaamijka toddobaadkan waxaan idinkaga tegaynaa dhamaantii anagoo isku duuban nabadgelyo